mudan cabdinuur kusoo dhow barnaamijka falaqeynta wararka waxaa tahay afhayeenkii wasaaradda amniga dowlad goboleedka Jubbaland maantay dagaalaya waxay ka dhaceen aagga hore ee deegaanada dhaca waqooyiga degmada Kismaayo gaar ahaan aagga Baarsanguun halkaas warar kala duwan ayaa ka soo baxay balse guud xaaladda halkaas wixii ka dhacay iyo khasaaraha argixisada loo geystay adoo naga faahfaahinaya warbixin naga tigay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومحسنتهي جبلان تي في waxaan u sheegayaa ummadda Soomaaliyeed saaka abaara afartii iyo barkii habeenimo ayaa waxay kooxaha khawaarijta ah weerar gaadmo ku soo qaadeen xerada Baarsanguun alxamdulillaah rabbil caalamiin waa laga foojignaa warbixintoodana waa la hayay halka markay soo weerareen waxay kala kulmeen jab iyo wax ay safilanayeen kooxaha khawaarijta halka ayaga ah waxay uga carareen rag fara badan oo ay meydkooda uga carareen waana loogu guulgaaray alxamdulillaah rabbil caalamiin argixisada halkaasi weerar ku soo qaaday maxaa khasaare ah loo geystay waa mahadsantahay Axmed argixisada halka weerarku ku soo qaaday waxaa khasaare oo loo geystay markii hore halka ay soo weerareen bay ku jabeen halka markay jab xoog leh ugu geystay oo ay laabteen baa waxaa wadada ku helay ciidamo looga tala galay oo fiidkii hore markii warbixintooda la helay wadada loo geliyay ayaa ayagoo jabaya dan dhabarka kaga yimid alxamdulillaah rabbil caalamiin khasaare weyn ayaa ku soo gaaray markay carareen waxaan kaga gubnay halka gawaari technical ah iyo gaari weyn oo biiji ah oo ciidan u saaraa waxa halka hadar ka soo gaaray mar labaad khasaare aan baaxadii zaid ay u weyn tahay dadka halka kaga dhintayna waxaan dadku cadeynayna 87 ayaan anaga aragnay dad kale waa la sii sheegay la xaqiijinaya waa tahay marka howlgalkan cid kale idinka saaciday ha saaxiibada naga saaciday markay jabeen nimanka ay diyaarada iyo maartay kor ka duqayeen marka hadda ciidankii dowlad goboleedka Jubbaland iyo xiradii iyo xaaladda guud ee saldhigga baarka nooga hor alxamdulillaah rabbil caalamiin xiradii iyo eredii ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland iyo dowladda federaalka ciidamada ay joogeen waa nabad cadawga damar laga guuleystay wax kale oo aad la sii raadinay ma jirto insha Allah bidna karim waxaan u sii tabaabashaysaneen waa inaan ayaga sii baxsano ilaa haddana ciidamada ku dawo maqan oo meel kasto ay galaan insha Allah bidna karim in laga saaro ayuu go'aan ka yahay haduu Ilaahay ma ahan markii koowaad oo la weeraro tusaale ahaan Baarsanguun hore waa loo weeraray marka ma muuqata in idinku aad gaabinaysaan dowladtiin maya de al-shabaab anaga waxaan ku balansanahay inayna weeraraan ama aan weerarno nabad aan ku balansanahay wax kale oo saxaan naga yaala ma jirto de cadawga kale aan leenahay maanta la dirirayna Soomaaliya dhibaataynay ayaga way de mar haddaan cadow marka isku nahay waa isku qasbanahay marka inay ama ina weeraraan ama aan weerarno laakiin waxa muhiim ah jawaab weerarka ay soo qaadeen jawaabta laga bixin baa muhiim ah wata marka macquul ma tahay in warbaahinta loo soo bandhigo khasaaraha ka dhashay insha Allah bidna karim waa la wadaagana khasaaraha haduu Ilaahay halka ka dhacay أخيرا طبعا weerarku saako dhacay ama xalay barkii wax xoog ma ka sii haysan intii abaabulku waxa ay socdeen ha waan la soconay xogtooda hadba waxay sameynayaan iyo waxay qorsheynayaan si fiican baan ula soconay waxa looga guuleystay dhibaatada looga dhigayna qorshihii ay wateen baa la ogaa xogtooda dhameystiran gacanta ku haynay annagana waa ka baaraan tagnay inaan soo afjarno waxaan u maqaalaa inay qaraxyo ay ku soo weerareen xerada qaabkii weerarku u dhacay dafafaahin ka bixisay hoose waxa ka galeen qaraxyada qaabkahay qaraxyada la qabtay la fashiliyay isay ku suura galeen waa mahadsantahay qaraxyo ay ku soo galeen waa run ilaa 3 qarax amal ay ku soo galeen xerada qaraxna waxa ay dhigeen meesha la yiraahdo buundada Baarsanguun ay dhigeen ayagoo ugu tala galay buundada Baarsanguun qaraxa ay dhigeen gaari way ka soo buuxiyeen waxa qaraxa halkaas ay dhigeen ayagoo ugu tala galay Baarsanguun buundadii mar dhow la hagaajiyay inay jiraan leen nimankan waa taqaanaa wax kasta oo la qurxiyo inay fool xumeeyaan way u taagan yihiin inay buundadii dadka Soomaaliyeed ka dhibaateeyaan mariinka halkaas ay gooyaan bay ku tala galeen waana laga gurgaar gaarigiina asagoo qarxin baa gacanta lagu dhigay kuwii kale way qarxeen cid khasaare ku soo gaartayna ma jirto alxamdulillaah rabbil caalamiin ayagana baa iyo hoog baa ka raacay cid wax marka laga soo reebo khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca iyo geedka laga gubay ee la arkay wax maartay maxaabiis oo joog nool laga qabto mid ha dad maxaabiis baa laga hayaa insha Allah bidna karim meediyan oo soo bandhigi doona haduu Ilaahay baan gartay dabcan hadda kan weerar iyagu ka imaaday buu ahaa dawladdu maxaa u qorshaysan dawladda deesaad ogtahay waxa uu qorshaysan muddo wad ogtahay madaxweynaha iyo wafdi uu hogaaminaya waxay marayaan deegaanada Jubbaland halka oo lagu diyaar garoobay la dagaalanka al-shabaab haduu Ilaahay in laga saaro deegaanada ay gacanta ku hayaan ee ay ka soo weerarayaan deegaanada xorta ah insha Allah bidna karim waxa marka dawladda go'aankeeda wuxuu yahay in nimanka halkay joogan looga tago deegaanada ay dhibaataynayaan dadka ay dhibaataynayaan laga dulqaado haduu Ilaahay dabcan dhulka hadda aad u socotaan dad Soomaaliyeed baa ku nool oo hadda dhibaato ay ku hayaan saad u sheegaysay dadkaas oo kale maxaa uga qorshaysan dawladda
waa mahadsan tahay dadka Soomaaliyeed ee halka ku dhibaataysan fariinta ay dawladdu u gudbinayso waxay tahay marka hore in ay ka foojignaadaan cadawga dhagartiisa iyo dhibaateyntiisa cadawgan waxyaalaha ay ku dhaqmaan waxa weeye inay dhibaateeyaan dadka Soomaaliyeed ma aha oo kaliya inay la dirirsan yihiin ciidan ama dawlad inay la dirirsan yihiin ma waxay la dirirsan yihiin waxa weeye aadamiga noloshiisa oo dhan bay la dirirsan yihiin marka dadka Soomaaliyeed marka hore waxaan leenahay ka foojignaada khawaarijta dhagarteeda iyo dhibaatadeeda meelaha ay ka dhow yihiin inay ka fogaadaan baan marka hore ugu baaqaynaa kadibna insha Allah bidina kariim dawladda go'aan baa kaga go'an dalka markii loo xureeyo dadka nolol iyo in loo geeyo haduu Ilaahay ma wixii ay mudnaa insha Allah gaadiidkan la soo bandhigay Jubbaland ay soo bandhigtay al-shabaab ay qarax ka soo gooyay waliba ay u isticmaashay noocan xabadda keen sidee kugu suurta gashnaa qabata waa mahadsan tahay shabaab gaadiidkii qarax bay ka soo buuxiyeen waxay u tala galeen bundada inay ku gooyaan ummadda halka maraysan ay ku halaagaan laakiin ka warqab iyo digtoonaan marka hore laga digtoonaa warbixintooda la hayay ba ciidamada dawlad goboleedka Jubbaland waxa u suura galay inay si fudud gacanta ugu dhigaan ayaga dadkii sitay halka ay lagu dilay oo markii ay inay baxsan isku dayeen gaarigan gacanta lagu dhigay